asalaamu calaykum kusoo dhawow daawada qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan afgembigii dhicisoobe ee dalka turkiga oo maraya qaybihii ugu dambeeyey. qaybteennii hore waxay noo joogtay markii aan ogaanay saamayntii arrimaha gudaha iyo qaybaha kale uu ku lahaa Fadxullaahi Gulen iyo kooxdiisa. markana istiraatiijiyadda iyo taariikhda Istanbul. maadaama magaalada Istanbul xudun ay u ahayd isku daygii afgembiga aynu soo aragnay iyo sidoo kale in kooxaha wada ee magaaladan ay aad xoog u saaraan iskuna mashquuliyaan in marka koowaad iyada gacanta ay ku dhigaan, sidoo kalena madaxweyne Erdogan uu doorbiday inuu magaaladan uu ka bilaabo dadaalkiisa fashalinta isku dayga afgembiga. waxa ay qormadani hoos ee uga daadagaysaa qiimaha magaaladan ee dhinaca istiraatiijiyadda iyo taariikhda oo dabcan ah sababta siisay muhiimadda gaarka ah. Istanbul oo taariikhdii hore ee khilaafadii Cusmaaniyiinta ka hor yeelatay magacyo kala duwan oo uu ka mid ahaa Qustandiniya, waxaa qiyaastii 660 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaatu wasalaam aasaasay dad isir ahaan ka soo jeeday Griigii hore oo dhulkaani u dhalan balse geedi ku yimid, waxaanay u bixiyeen Timna oo ay ugu magacdareen boqorkoodii xilligaasi. Istanbul imbaradoriyado iyo boqortooyin kala duwan ayaa ay caasimad u ahayd. waxaa ka mid ahaa imbaradoriyadii Romaaniyiinta, Byzantiniyiinta, Laatiiniyiinta iyo sidoo kale dowladii Cusmaaniyiinta oo xarun ay u ahayd in ka badan 4 qarni iyo bar oo u dhaxaysay sanadihii 1453 ilaa 1923 miilaadiga. waqtigaas oo ahayd magaalo aad loo qadariyo. Istanbul dadka qaarkii waxa ay jecel yihiin inay ku tilmaamaan magaalo lahaan jirtay muhiimad diineed, iyaga oo xasuusan in waayadaha qaar ee dadka Kristaanka ee dunida si gaar ah u qadarin jireen, gaar ahaan xilliyadii ay diinta Kristaan ka qaadatay imbaradoriyadii Byzantiniyiinta ee ay magaalada xarunta u ahayd. haddana waxay noqotay magaalo qadarin gaar ah ku leh dadka muslimiinta maadaama ay muddo qarniyo badan xarun ay u ahayd dowladii muslimiinta ee Cusmaaniyiinta. sidoo kale muddo hadda laga joogay ilaa 500 oo sano waxa magaaladan dadka degan ay ku soo biiray dadka haysta diinta Yuhuudda oo iyagu markii hore qaxooti ahaan ku soo galay iyaga oo diintooda la baxsanaya. kadib boqortooyadii Spain ka dhalatay dowladii Cusmaaniyiinta kadib ay dadka dhulkaasi deganaa oo dhan ay qasab ay ka dhigtay in diinta Kristaanka la qaato. arrinta xiisaha leh ee halkaasi ka jirta waa in dowladda Cusmaaniyiinta ee ka horeysay boqortooyadii Isbaanishka ay ogolaadeen wada noolaanshaha dadka kala diimaha ah, sidaas awgeedna ay dhulkaasi ay ku wada noolaayeen dadyow kala caqiide ahaa. balse markan dambe oo Cusmaaniyiinta laga qaatay Spain oo boqortooyadii dhalatay ka diiday dadkeeda inay haystaan diin aan Kristaanka ahayn, sidoo kale waxaa iyaduna dadka arrimaha diimaha baara macno fiican u samaysa in dowladii iyo dadkii muslimka ahaa ee ku dhaqnaa Istanbul ay soo dhaweeyeen dadka Yahuudda ah ee u soo firxaday, una ogolaadeen inay dhulkooda ila soo degaan iyagoo diintooda Yahuudda haysta oo weliba loo ogol yahay inay dhisan karaan goobo ay ku cibaadaystaan. Istanbul oo iminka ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso ilaa 20 milyan ku dhowaad iyo 700,000 oo ruux, waa magaalo dadka ugu badan ee dalka Turkiga ay joogaan. waa magaalo dhaqan, dhaqaale iyo taariikheed ee hay'adda qaramada midoobay ee dhaqanka, waxbarashada iyo sayniska ee UNESCO ay ku dartay liiska dhulalka taariikhiga leh ee dhaxalka aadamaha ay tahay in cid kasta oo soo gaarta ay dhowrto. Istanbul dadkeeda caadi ahaan waa muslimiin sunni ah, laakiin waxaa ku jira tiro Kirishtaan ah oo aan fara yarayn iyo Yahuud aan aad u badnayn. labadooduna si xorriyad ah ayay diimahooda ugu haystaan gudaha magaalada Istanbul, waana sababta sanadkii 2010 loogu daray inay noqoto caasimadda hiddaha iyo dhaqanka Yurub ee midaysan. magaaladan oo ah caasimadda dhaqaalaha ee dalka Turkiga waa magaalada kaliya ee dunida oo dhan uu dhex maro xad kala qaybiya 2 qaaradood oo kala dhaqan, dhaqaale iyo nolol duwan, waxaanay u qaybsan tahay 2 daamood ama 2 dhinac oo uu marin badeed uu kala dilaaciyay. waxa ay u dhaxaysaa 2 daamood ama 2 dhinac ee badda Marmara iyo badda Madow, waxaana isku xira bariij ama buundo aad muhiim u ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin Bosphorus, waa bariij ama buundo dulmara oo ah kan dunida oo dhan ugu dhuuban ee loo isticmaalo socdaale caalami ah, waxaana isku xira Turkiga Yurub iyo Turkiga Aasiya. sidaas awgeed Istanbul waa magaalo dalxiis oo dad badan ay si joogto ah u yimaadaan. buundadan oo taariikh hore oo fog leh, habka uu hadda u yaalo ee casriga ah waa dhismihii la dhameystiray sanadkii 1973 intii ka horeysay 15 Juulaay 2016 waxa lagu magacaabi jiray Bosphorus ama buundadii ugu horeysay sida dadka qaar ee Turkida ay u yaqaanaan, laakiin waxa uu taariikh cusub u yeeshay maalintii afgambigii uu dhicisoobay.
bariijkii ama buundadii Bosphorus waxa uu noqday goobtii furaha u noqotay fashilinta afgambiga kadib markii dadweyne badan oo diidan afgambiga ay hor istaageen taangiyadii iyo gaadiidkii ciidamada afgambiga ee u socday inay kala xiraan magaalada labadeeda dhinac iyo inay u gudbaan dhinaca gegida diyaaradaha si ay ula wareegaan ugana hortagaan madaxweyne Erdogan inuu ka soo dego ama ay xabsiga ay dhigaan markuu ka soo dego garoonka. qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa ku dhintay ama ku dhacay gacanta ciidamada afgambiga waxaana isugu jireen dad ay ciidamada ay toos u toogteen iyo kuwa taangiyada ay isu dhigeen cagtana la mariyay. fashilintii afgambiga kadib madaxweyne Erdogan waxa uu soo saaray go'aan uu magaca uga bedelayo buundadaasi kadibna lagu magacaabay bariijka ama buundada 15 Juulaay ama shuhadadii 15 Juulaay. buundada labaad waa mid isku xirta Turkiga Yurub iyo Turkiga Aasiya. waa bariijka lagu magacaabo Fatix Sultan Maxamed oo loogu magacdaray suldaankii Cusmaaniyiinta ee Maxamed al-Fatix oo ahaa hogaamiyihii magaalada Istanbul ee xoogga kaga xoreeyay xididadana u siibay imbraadoriyadii Bisaantiniyiinta. bariijkan ama buundadan oo ah nooca lusha sida leexada waxa uu labada dhinac kaga xiran yahay laba tiir oo aad u adag waxaana uu badda ka sarreeya 64 mitir. buundada Sultan Maxamed Fatix lixaad markii la dhisay oo ahay sanadkii 1988 wuxuu ahaa bariijkii laalada ee dunida ugu dheeraa laakiin hadda waxa uu ku jiraa kaalinta afraad. buundada saddexaad ee isaga gudba labada daamood ee badda kala qaybisa magaalada Istanbul waxaa lagu magacaabaa Sultan Salim. buundadan oo dhismaheeda la bilaabay 2013 waxa uu qorshahu u yahay in la furo sanadkan. buundadan Sultan Salim waxaa magacan u bixiyay madaxweynihii xilligaasi ee la bilaabayay talada haya ee Cabdalla Guul waxaana uu dhagax dhigay isaga oo ra'iisul wasaarihii xilligaasi Rajab Tayyip Erdogan oo hadda ah madaxweynaha talada dalka haya iyada oo lagu magacdaray Sultan Salim kii koowaad ee dowladii Cusmaaniyiinta oo ahaa hogaamiyihii ku guuleystay in dowladii Cusmaaniyiinta ay ku fido dhinaca bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. marinka Marmaray waa jid tareen oo marabada hoosteeda meel ku beegan buundada aynu ka soo hadalnay ee shuhadada 15 Juulaay waxaanu isku xiraa qaybaha Yurubta iyo Aasiyada ee magaalada Istanbul. marinkani badda hoosteeda oo xariga laga jaray sanadkii 2013 waxa uu qayb ka ahaa mashruuc tareen oo dhulka hoostiisa maraya oo meelo kala duwan isku xiraya labada daamood ee magaalada. Istanbul oo ah magaalada ugu weyn ee dalka Turkiga, magaalada ugu weyn ee qaaradda Yurub, magaalada 7aad ee dunida ugu weyn iyo magaalada 8aad ee dunida ugu dadka badan. dadkeeda 3 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan waxa ay ku nool yihiin daanta Aasiya dhacda. sanadkii 1920 dhamaadkii dagaalkii koowaad ee dunida kadib oo xoog looga roonaaday isbahaysigii la baxay quwadda dhexe oo ka koobnaa imbraadoriyadii Jarmalka, Austria-Hungary, dowladii Cusmaaniyiinta iyo Bulgaariya oo isku xiran ayaa dowladihii xulafada ee guuleystay oo iyaguna ahaa jamhuuriyaddii Faransiiska, imbraadoriyadii Ruushka iyo Ingiriiska iyo dalka Talyaaniga oo isaga markii hore dhinaca kala jiray balse ka dhinac badashay. waxay soo saareen heshiisyo ay iyaga dantooda ay waafajiyeen oo ay ku qasbeen dalalka laga xoog roonaaday inay saxiixaan. dalalkii laga guuleystayna waxay u arkayeen inay ku qasban yihiin saxiixidda go'aamadaasi si ay u nabadgalaan. heshiiskaasi oo lagu saxiixay dalka Turkiga waxaa loogu magacdaray magaalada lagu sameeyay ee Zervas oo Faransiiska ah. inkastoo qodobo ka mid ah ay fuleen, dad badan ay aaminsan yihiin inuu ahaa kii soo afjaray midnimadii dowladii khilaafada Islaamka ee Cusmaaniyiinta. haddana sida lagu ogaaday baaris uu sameeyay madxafka cilmi baarista ee Al Jazeera, dowladii Cusmaaniyiinta ergadii Sarfis uga soo saxiixay heshiiska oo khilaafka ka socday ka sokow si rasmi ah looma dhaqangelin heshiiska maadaama ay markiiba ay talada dalka ay la wareegeen dhaqdhaqaaqii wadaniyiinta dalka Turkiga uu hogaaminayay Mustafa Kemal Atatürk 3 sano oo kaliya kadib. Atatürk waxaa markiiba uu diiday qodobadii heshiiskan ee aadka u saameeyay nolosha dadka Turkida iyo jiritaanka dowladnimadooda, isla markaana uu arkayay in dalalkii xooga badnaan lagu qancin karo inaanay ku dhigin. sidoo kale waxa uu qaaday tallaabo uu dadku u tusayay inuu ciqaabayo kuwii qaladka sameeyay oo Cusmaaniyiinta ahaa, laakiin runtu ay ahayd in xukunkiisa uu ku sii adkaysanayay. Mustafa Kemal Atatürk waxa uu dowladihii guuleystay oo kula dooday in qodobada qaarkood ay xadgudub ay ku yihiin dadka iyo dalka Turkiga. qodobada uu sida aadka u diiday waxaa ka mid ahaa kuwii dowladii Cusmaaniyiinta ogolaansiinayay in ay ka tanaasusho dhul aad u ballaaran oo dalkeeda ka mid ah. tusaale ahaan in Turkiga uu ka baxo dhul ballaaran oo lagu magacaabo Thrace. dhulkaasi istiraatiijiyadda waxa uu dhaxeeya dalalka Turkiga, Bulgaariya iyo Greega.
mustafa kamaal ataturki markii uu qodobka heshiiska duleynta ka mid ahaa uu laalay waxa uu ka shaqeeyey oo uu ku guulaystay inuu Gariiga uu dib uga saaro dhulka loo yaqaano Eeshiyada yar isaga oo sidoo kalena ku guulaystay in uu quwadihii dagaalka ku roonaaday ku qanciyo in heshiis labaad ay la galaan dalka Turkiga kaas oo dhacay sanadkii 1923 qodobadii heshiiskii hore ku qornaa ee meesha uu ka saarayna ay ka mid ahaayeen xuquuqdii Kurdiyiinta waxaa kale oo si weyn oo Turkiga u dan ahaa uu wax ka bedelay qodobka la xiriira marin biyoodka dhex mara magaalada Istanbul ee Bosphorus qodobkaasi oo la xiriira qoraalkeenan ayaa dhigaya in labada marin biyood ee Bosphorus ay ka mid tahay oo muhiim u ah socodka badda ee caalamiga ah labadoodaba lahaanshiyadooda lagu wareejiyo ururka Qaruumaha Midoobay ama Qaramada Midoobay halka hay noo joogto qaybtan oo ku saabsanaa afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga qaybihii ugu dambeeyay oo xambaarsan macluumaadyo kale oo caalami ah ayaan ku guda jirnaa ee buugga afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga waxa qoray Kamaal Axmed Cali qaybtan qaybta xigta ku kulmi doona waxaan kaga tagayaa sida ay nabad